halkani waa BBC saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7 aroornimo oo gow ah waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada Facebook iyo boggeena internetka ee bbcsomali.com kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal jimco wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa subaxnimo jimco ah 11 bisha Agoosto ee sanadka 2023 waxaan ahay Kawthar Maxamed Cabdullaahi idaacadda subaxnimo qodobada aan idinkugu haynana waxa kamid ah Mareykanka oo soo dhaweeyay heshiis maxaabiis isdhaafsi ah oo ay la galeen Iran Facebook oo xayirtay wararka barteeda laga helo kadib markii ay sharciyo ku soo rogtay dawladda Canada gabadhan ayaa kamid ah dadka ay xayiraadaasi saameysay waxaan ahay dadkii aad ugu xidhnaa BBC-da kana dhageysan jiray Facebook iyo YouTube-ka laakiin waxay noqotay imika dhibaato in aan dib dambaysa looga soo deynayn warkii laga dhageysanayay Facebook madaxweynaha Ivory Coast oo sheegay in kumanaan ciidan ah uu u diri doono dalka Niger oo wajahaysa dhaleeceyn caalami ah kadib afgambigii dhawaan halkaasi ka dhacay dhageyste maxaad ka ogtahay taariikhda ay Soomaalidu soo tirsanayeen muddo sanado ah kaltirsi iyo dabsheed kala guur iyo magac fara badan istuna meelaha qaar kood baa lagu yiraahdaa dabgal baa meelaha qaar kood lagu yiraahdaa waa sanad Soomaali saas daraadeed isniintii dhaweyd amkaan soo dhaafnay ee bisha August ay 7 ahayd waxa dhashay sanadkii cusbaa ee Soomaaliga ahaa oo la yiraahdo Nowruskii isniineed qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ciyaarihiina ay ku jiraan ayaad ku maqli doontaan idaacadan subaxnimo oo uu soo saaray Cabdulqaadir Yuusuf Cali asayee dhegeystayaal marka hore ku soo dhawaada wararka caalamka ee BBC-da waxaana u diyaar ah Cabdiraxmaan Cali Dhimbil mahadsanid Kawsar Barasaabka gobolka Hawaii ayaa sheegay in dabkii ka kacay jasiiradda Maui uu sababay xaalad noqon karta masiibo dabiici ah tii ugu weynayd ee soo marta gobolkan Josh Green ayaa sheegay in dadaalka dib u dhisku uu qaadan doono sanado una ku kici doono balaayiin dollar ugu yaraan 13 qof ayaa la hadal xaqiijiyay inay ku dhinteen dabkaas ka kacay gobolkaas ka tirsan Mareykanka xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa soo dhaweeyay sii deynta 5 Amerikaan ah oo laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Iran Anthony Blinken ayaa sheegay inay calaamad noqon doonto bilowga waaye cusub iyo sidoo kalena dhamaadka riyooyinka qarowga ah ay la kulmayeen maxaabiistan sida qaldan loo xiray booliiska Ecuador ayaa sheegay in xubnihii ku lug lahaa ay ahaayeen koox burcadbadeed Colombian ah isla marhaantaana ka dambeeyeen dilkii Arbacadii loo geystay musharax madaxweyne oo dalkaas ah Fernando Villavicencio ayaa lagu toogtay xaflad olole oo ka dhacday magaalada Quito maamulka Biden ayaa ka codsaday Congress-ku inuu ogolaado 20 bilyan oo dollar oo kale oo lagu taageerayo Ukraine inta badan lacagtan ayaa qorshuhu yahay in lagu bixiyo gargaar military madaxweynaha Ivory Coast ayaa sheegay in ku dhawaad 1,000 askari oo dalkiisa ka socda ay ku biiri doonaan ciidamo heer gobol ah oo heegan loo galiyay si ay uga jawaabaan afgambigii bishii hore ka dhacay dalka Niger Alassane Ouattara ayaa hadalkan jeediyay kadib shir degdeg ah oo ay yeesheen urur goboleedka galbeedka Afrika ee ECOWAS ugu dambeyn Ruushka ayaa bilaabay howlgalkiisii ugu horeeyay ee uu ku tagayo dayaxa dushiisa muddo ku dhow nus qarni dayax-gacmeedkan ayaa ka kacay kaam ku yaala bariga fog ee Ruushka Cabdiraxmaan Cali Dhimbil oo mahadsan yahay wararka caalamka ee BBC-da ayaad dhageysanayseen markana qaybaha kale ee idaacadeena subaxnimo waa hagaag subax wanaagsan mar kale dhageystayaal sida warka caalamka aad ku maqlayseen Mareykanka ayaa soo dhaweeyay heshiis ay gaareen maxaabiis isdhaafsi ah oo ay gaareen Mareykanka iyo Iran heshiiskaas ayaa lagu soo siideynayaa 5 nin oo Amerikaan ah oo la sheegay in si qaldan loogu xiray gudaha Iran si loogu bedelo maxaabiis Iraaniyiin ah oo Mareykanka u xirnaa qareenka mid kamid ah dadkaasi xiran ayaa bayaan ku sheegay in maxaabiista laga soo siidayay xabsiga Evin oo Iran ku yaala isla markaana la geliyay xabsi guri madaxa wararka caalamiga ah ee BBC-da Liz Dowsett ayaa soo dirtay warbixintan Cabdulqaadir Yuusuf Cali ayaa soo jeedinaya ila wareedyo ayaa BBC-da u sheegay in 5 qof oo reer Mareykan ah oo sidoo kale haysta baasaboorka Iran la sii deyn doono marka lacagta oo hadda taalo Kuuriyada Koonfureed lagu xarayo bangiga dhexe ee dalka Qatar ee ku yaala Khaliijka
sii deynta 5 maxbuus oo laga sii daayay xabsiga caanka ah ee Evin ee Iran, kuwaasi oo hadda la sheegay in xabsi guri la geeyay, ayaa lagu soo waramayaa inay tahay tallaabadii ugu horeysay ee heshiis la wada sugayay. mid ka mid ah raggan oo lagu magacaabo Siamak Namazi ayaa ku dhawaad muddo 8 sannadood ah ku qaatay xabsiga, isagoo lagu eedeeyay sida kuwa kaleba inuu u basaasay Mareykanka. waxaa xiray ciidamada ilaalada kacaanka bishii Oktoobar 2015, halka aabihii Baqweer oo 86 jir ah la xiray Febraayo 2016 kadib markii saraakiisha Iran ay u ogolaadeen inuu wiilkiisa ku booqdo xabsiga. bishii Oktoobar labadooduba waxay maxkamadda kacaanka ku xukuntay 10 sannadood oo xarig ah kadib markii lagu eedeeyay la shaqaynta waddan shisheeye oo cadow ah. maxkamadda racfaanka ayaa xukunkooda ku raacday Agoosto 2017. ila wareedyo ay BBC-da la hadashay ayaa sheegay in raggaasi ay Iran ka bixi karaan oo kaliya marka $6 bilyan oo oo hantida Iran ah oo hadda taala Kuuriyada Koonfureed lagu wareejiyo bangiga dhexe ee Qatar. lacagtaasi oo loo isticmaali karo oo kaliya iibsashada agabyada bini'aadamtimo sida dawo ama cunto. heshiiskan ayaa la sheegayaa inuu qaadan karo muddo dhowr toddobaad ah. heshiiska ayaa sidoo kale la sheegay inuu ka mid yahay in 5 Iiraaniyiin ah oo ku jira xabsiyada Mareykanka la sii dayn doono. warkan ayaa rajo naadir ah geliyey qoysaska ay raggan ka dhasheen, kuwaasi oo ku rajo weyn in dhowaan ay guryahooda iman doonaan. laakiin heshiiskan ayaa lagu tilmaamay inuu weli yahay mid adag oo xasaasi ah. wadaxaajoodyada ayaa socday muddo sannado ah iyadoo la isku dayayay in xabsiga laga sii daayo raggan, waxaana heshiisyadaasi ka mid ahaa maxaabiis isweydaarsi iyadoo la sii daynayo Iiraaniyiinta ku xiran xabsiyada Mareykanka iyo dalal kale oo reer galbeed ah, iyo sidoo kale in la khafiifiyo cunaqabataynta Mareykanka Iran. Iran ayaa waxay sanadihii u dambeeyay xirtay dhowr qof oo haysta 2 dhalasho, kuwaas oo inta badan lagu eedeeyay arrimo la xiriira ammaanka qaranka. cabdiqaadir yuusuf cali oo mahadsan yahay oo warbixintaasiina la socodsiinayay. markana dowladda Canada ayaa sharci ku soo rogtay isticmaalka baraha bulshada, gaar ahaana Facebooka, Instagramka oo ay leedahay shirkadda Meta iyo Google. sharcigan ayaa dhigaya in shirkadahaasi ay bixiyaan lacago si loola socdo wararka iyo warbixinada lasoo dhigo bartaas. shirkadda Meta ayaa haatan xayirtay in warar laga helo Facebooka, gaar ahaana dadka ku nool Canada. haddaba sidee arrintan u saameyn doontaa dadka wararka iyo warbixinada kala socda Facebooka ee ku nool guud ahaan Canada? waa kan Duraan Xasan Yare oo warbixintan halkaasi kasoo diray. maadaama inta badan dadka reer Canada ay ku xiran yihiin ama wararka ay ka helaan baraha bulshada ayna yareeyeen daawashada iyo la socoshada meelaha kale ee wararka laga helo, haddaba sharcigan oo jahwareer ka abuuray guud ahaan Canada ayaan wax ka weydiiyay qoraa Maxamed Bakayr oo wax ka qora arrimaha dalka Canada. Duraan sidaad ogtahayba waqtigan aan ku jirno wax weeyaan waqti la yiraahdo manaha information age ama waqtiga ay waxya loo yaqaan social media oo aad iyo aad xoog leedahay. marka warbaahintii kambaniyada ama organisationada Canadian media ka shaqeeya abuureen ay sameeyeen iyagu ayaa si bilaash waxa looga daawadaa ama loogu akhristaa Facebooka iyo magaranaysa Instagramka iyo Googleka. marka Canada waxay leedahay waxa kama qabno in magaranaysa yani informationka dadku ay helaan adduunku uu helo, laakiin waxa Canada ay soo saarto warbaahinta Canada ay soo saarto haddaad tihiin Facebook iyo Google wax magdhow ka bixiya oo matalan haddii aad matalan information aad platformskiina aad ku soo manali faaqdaan ama laga akhristo waxaas inay bilaash noqon, laakiin macnaha percentage dib loogu celiyo dadkii waxaan sameeyay arrintan soo alifay ee abuuray. marka sharciga isaga oo ku qotoma waxa loo yaqaano online news actiga waxa ay Canada uga dan leedahay warbaahinteedu inaan daciifin oo aan suuqa laga saarin oo matalan social media iyo waxyaalaha dadku aad ay u daawadaan aynan macnaha ka takhalusin. taas ayay ahayd ujeedadeedu runaantii. shirkadda Facebook ayaa diiday inay u hoggaansanto sharciga ay soo rogtay dowladda Canada, waxayna iyadoo arrinta ka jawaabaysa joojisay dhammaan wararkii lagala socday barteeda baraha bulshada. arrintaas waxay sababtay inay magaranaysaa organization giant tag loo yaqaano ee Facebook oo kala inay talaabo qaadaan inay totally joojiyeen wararkii ka imanayay Canada. marka wax war oo ka imanaya Canada oo lagu dhajinay Facebook ma jiro, waa la xiriirayaa. sidee arrintan u saameynaysaa gaar ahaan dadkii wararka kala socon jiray social media gaar ahaan Facebook? runaantii aad iyo aad u saameynaya, waayo waqtigan aan joogno saa hore u sheegay waa waqtigii magaranaysa social media dadku waxay wararkooda ka helaan Facebooka ama Instagramka ama Googleka oo matalan marka wax lagu qoro oo kala aad tidhaahdo waxaas waxa jira markiiba ku soo tufaya. marka dadka Canadianka waxay noqonayaan runaantii dad yani war aan helin bay noqonayaan, dad la xiriiray noqonayaan
noqonayaan dhowaan sanadkan gudihiisa daraasad la sameeyey uu sameeyey organization ama hay-ad la yidhaahdo Angus Reading Institute oo Canada ay leedahay waxay sheegeen 85% dadka Canadiankii inay wararkooda ka helaan social media oo macnaheedu yahay inay wax newsletter u imanin inay TV macnaha aynan subscription ama aynan connection lahayn wararka ay ka helaan kaliya Facebookaas iyo Googlekaas oo qofku wuxuu doono uu raadinayo iyo Instagramka marka taas macnaheedu waxay tahay arintani dadka Canadianka oo ay dadka Soomaalida ku jiraan si aad iyo aad ayuu u saameynayaa Nasra Warsame waxa ay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada waxayna had iyo goor wararka kala socon jirtay barta BBC Soomaali ay ku leedahay Facebook balse wixii hadda ka dambeeyay ma awoodo inay wararka halka kala socoto sababo la xiriira talaabada ay qaaday shirkadda Facebook ee ka dhanka ah sharciga dawladda Canada waxaan ahay dadkii aad ugu xidhnaa BBC-da kana dhageysan jiray Facebook iyo YouTube-ka laakiin waxay noqotay imika dhibaato in aan dib dambaysa looga soo deynayn warkii laga dhageysanayay Facebook marka inaga hadeen Soomaali nahay inta badan inaga aad bay noogu fududahay inaynu ka dhageysano Facebook aad bay noogu fududayd waxay noqonaysaa in aynu website-da ama app store-ka aynu ka soo qaadano taasina waxay aad ugu adkaanaysaa dadkii waaweynaa oo markii hore sida fudud ka dhageysan jiray Facebook laakiin imika inay website galaan oo ay baaraan oo hadhowna ama maxaan idhaahdaa ama ayna cilmigeediiba lahayn isla taas oo kale waxaa qaba qoraa Maxamed Bakayr oo ii sheegay in arrintan si weyn u saameynayso Soomaalida maadaama in badan oo kamid ah ay wararka kala socdeen baraha bulshada gaar ahaan Facebook dadka Soomaalida aad iyo aad arrintan u saameynaysa waxaynu ognahay Soomaalidu inay tahay dad oral society marka dad badan oo wararka ka helayay midna sida baraha bulshada oo sida BBC oo hay'ad weyn ah ma helayaan wararkaas runaantii marka Facebook laga helayay maadaama la xayiro oo warkii ay helaynin macnaha marka wuxuu noqonayaa war ma helayaan taa waxa ku dheer Soomaalidu midna warka way isu diraan isaf garanwaaga u dhaxeeya dawladda Canada iyo qaar kamid ah shirkadaha baraha bulshada ayaa saameyn weyn ku yeeshay dadka ku nool Canada oo intooda badan wararka kala socday baraha bulshada gaar ahaan Facebook waxaana in badan oo kamid ah dadka ku nool Canada codsi u direen dawladda Canada iyagoo ka codsaday in arrintan ay xal ka gaarto Duraan Xasan Yare oo mahadsan yahay oo warbixintaasi Canada inooga soo diray oo ku saabsan xayiraadda baraha bulshada ee dawladda Canada wali halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC barnaamijka tabinta tooska sabtidan waxaanu ku soo gudbinaynaa kulanka u dhaxeeya kooxaha Arsenal iyo Nottingham Forest waa mid kamid ah kulamada bilowga ama toddobaadka koowaad xiliyaareedka cusub ee Premier League Arsenal kaalinta labaad ay ku dhameysatay xiliyaareedkii hore sanadkan waxay doonaysaa in ay mar kale tartanto halka Nottingham Forest ay sanad kale doonayso inay baaqi ku sii ahaato heerka koowaad ee horyaalka Ingiriiska ee Premier League nagu soo biir tabinta tooska oo bilaaban doonta 2 duhurnimo xilliga bariga Afrika tabinta tooska BBC وهاجاج مركنا سيدا ورك عالم كبا تكون مقليسين مدحينها ايفوري كوست ayaa sheegay in ku dhawaad kun askari oo dalkiisa ka socda ay ku biiri doonaan ciidamo heer gobol ah oo heegan loo geliyay si ay uga jawaabaan afgembigii bishii hore ka dhacay dalka Niger madaxweynaha ayaa hadalkan jeediyay kadib shir degdeg ah oo ay yeesheen urur goboleedka galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS stuudiyaha waxaa toos la fadhiya Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil oo warkaasi noo faahfaahinaya Cabdiraxmaan kowsaray waxa u dambeysay madaxweyne Alassane Ouattara uu sheegay in kooxdooda si gaar ah urur goboleedkooda ay ka go'an tahay inay hawshaas meel saaraan sidoo kalena wuxuu sheegay in kooxda xukunka la wareegtayna iyaguna aanay ogolayn inay sii daayaan madaxweynihii la doortay Niger Mohamed Bazoum waxa xilka laga tuuray afgambigii dhacay bishii hore Masdar Ouattara wuxuu sheegay in askarta Nigeria Benin iyo dalal kale ay heegan ku jiraan isla mar ahaantaana Ivory Coast-na ku biiri doonto waa haddii uu qorshahoodu noqdo inay si awooda goobta u farageliyaan horaantii khamiistii bay ahayd markii madaxda ECOWAS ay sheegeen in adeegsiga awooddu uu noqon doono xalka ugu dambeeya haddii madaxda afgembiga horkacaysa ay aqbali waayaan waxyaalaha loogu baaqayo hogaamiyaasha afgembiga sameeyay waxay markii hore iska indhatireen hanjabaadda ECOWAS ee ah inay qaadi doonaan talaabo military haddii aysan soo celin madaxweynihii xilka laga tuuray toddobaadkii hore hogaamiyaasha afgembiga military ee Niger
waxay la xidhiidheen kooxda calooshooda u shaqaystayaasha lagu magacaabo Wagner si ay taageero uga helaan faragelin kasta oo military oo uga timaada ururka ay ku midaysan yihiin wadamada galbeedka Afrika ee lagu magacaabo CAWAS. dhanka kale Cabdulfataax Musaah oo gudoomiyaha arrimaha siyaasadda nabadda iyo ammaanka ee CAWAS oo wareysi gaar ah BBC-da siiyay waxa uu sheegay in ciidamada military aysan doonayn inay xidhiidh gaar ah ama xidhiidh toos ay la sameeyaan ururka ay macnaha ku taxalluqaan balse ay tahay doonis ka imanaysa dalalka ururkaasi ku jira Kowsarey wuxuu sheegay inay isku dayayaan inay marka hore xalal nabadeed wax ku raadiyaan laakiin haddii ay suuro gali weydo oo hadallada iyo dhanka diblomaasiyaddu shaqayn waayaan in laga maarmaan ay noqon doonto buu yidhi in awood la isticmaalo wadamada galbeedka Afrika waxaad moodaa in inqilaabku iska noqday muddooyinkii ugu dambeeyay caado wuxuuna u muuqdaa kan mid aan dhammaad lahayn waxaana cad faragelin kasta oo military ay sameeyeen hogaamiyaasha galbeedka Afrika inay halis dheeraad ah ay xasiloonida gobolka sii gelinayso sida Kowsarey ay qabaan dadka siyaasadda falanqeeya. waa mahadsantahay Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil ayuu ahaa oo toos stuudiyaha la fadhiya oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay dalka Niger oo dhawaan uu afgembi ka dhacay markanse dhageyste taariikhda inta badan waxaan maqalnaa midda hijriga iyo milaadiga balse ma ogtahay in ay jirto taariikh Soomaalida ay soo tirsanayeen kumanaan sano mase ogtahay in isbuucan gudihiisa uu dhashay sanadka cusub ee Soomaalida wariyaha BBC-da ee Muqdisho Maxamuud Cabdicasiis ayaa waxa uu arintaasi ka wareystay Ibraahim Axmed Cali oo qoray buugga kala tirsiga Soomaalida. kaltirsiga Soomaalidu waa mid fac weyn oo ka soo jeeda isirkii hore ee Soomaalida waxay la wadaagaan oo ay wadaagi jireen ilaa haddana la wadaagaan abtirsiintoodii hore iyo dhalashadoodii hore halkii ay ka soo jeedeen isirkoodii hore ee Kureekuush ahaa waa tirsi la mid ah sida midda ummadaha hore ee qadiimka ah oo waxay xidhiidh ay la leeyihiin tirsigan uu la leeyahay xidhiidh faraacintii oo Soomaalidana ay xidhiidh wala lahaayeen tii oo maanta aan diiwaan gelinay oo akademigan ka dhignay oo mid la dhiganta oo lagu dhaqmi kara oo sidii aan awal haday maskaxda odayada uu lagu hayay diiwaan gasho oo weeyaan kaltirsiga Soomaalidu oo wax cusub aan ahayn waxa weeyaan kaltirsi iyo dabshad kala guur iyo magac fara badan istuna meelaha qaarkood baa lagu yiraahdaa dabgal baa meelaha qaarkood lagu yiraahdaa waa sanad Soomaali saas daraadeed isniintii dhaweyd amkaan soo dhaafnay bisha August ay 7 ahayd waxa dhashay sanadkii cusbaa ee Soomaaliga ahaa oo la yiraahdo Nowriskii isniineed sanadku noqonayaa marka wuxuu noqonayaa sanadkii 6223 waa tiro aad u fog oo hadda markaan fiirino taariikhda miilaadiga kaleento waa 2023 hadda la maraa mid hijrigan waxa la maraa 1445 sidee bay ku timid 6223 kaltirsigan wuxuu ku xidhan yahay isirka Soomaalida waxay isku xidhan yihiin faraacintii waxa weeyaan sanadkan Soomaaligu wuxuu dhashay uu ka soo bilaabmay xilli xagaaga waxaa dhulka Soomaalida ka jiray dulum iyo dhibaato iyo boob iyo barakac ka bacdi Soomaalidii waagaas way shirtay dadkii reer Kuushaha ee waaga way shireen ee Soomaalidan maanta ka imatay waxay ku shireen in ay nabad iyo xasilooni dhulka ay ka dhacdo ka bacdi waa xal balba la qabtay balkii la iskugu yimiday wuxuu keenay nabad in la xidho maalintii nabadda la xidhay ee balka la qabtay waxa la yiri markuu roobku noo doo ee xagaaga ay tahay ee xooluhu ay dhalaan dadka isku imanaya boqorada isku imanaya dhaqaale loo helaayo balkeenu ha noqdo balkii baa la qabtay sidii baa la isugu yimiday xilligaas ayaa laga soo bilaabaa haddaan soo galna bilaha miilaadiga kale waxaan naqaanaa bilaha January February hijriyada kalentana sida Ramadaanka iyo Shawaalka iyo Rabiul Awwal iyo ay ku jiraan bilaha Soomaalidu magacyo gaar ah may leeyihiin gudiyadii cilmi baarista aan ku sameynay oo muddo imika aan soo wadnay 18 sanadooda kolba heer soo mareysay waxa la qaatay 12 banood oo af Soomaali ah oo laga soo dhex saaray kuwii sii jiray marka ku ugu dambeysay la qaatay oo wixii ku dhan kuma wala sheegi karo iyaan ku sheegay kugu dambeysay oo hay'ada ugu dambeyn 22 jaamacadood ay ka dooday oo ay aqoonsatay iyaan ma aragtay ku sheegay oo ah kuwa la isku raacay ee la aqoonsaday meelaha qaar koodna inta badan ka hirgalay waxa weeyaan bisha koowaad waxa la yiraahdaa naaf bisha labaad waxa la yiraahdaa kodxin bisha saddexaad waxa la yiraahdaa dirir bisha afraad waxa la yiraahdaa gudba
bisha shanaad waxaa la yidhahdaa xoorey bisha lixaad waxaa la yidhahdaa dharabley bisha toddobaad waxaa la yidhahdaa cuur bisha siddeedaad waxaa la yidhahdaa cirir bisha sagaalaad waxaa la yidhahdaa dugato bisha tobnaadna waxaa la yidhahdaa miicaad bisha 11aadna waxaa la yidhahdaa afagaal bisha 12aadna waxaa la yidhahdaa agaali waxaa la isweydiin karaa Soomaalidu dad inta badan wax afka ku gudbiyay ahaayeen ama gabay ha noqoto ama macay ha noqoto oo taariikhdoodu ma qorneen taas waxay keentay in muran badan uu dhaliyo marka adiga kaltirsigan buugan aad samaysay Soomaalida oo dhan ma ku midaysan tahay oo meelo badan ma geysay oo ma jiraan dad kula aqbalay waa su'aal kale oo iyadna aad u sareysa kaltirsigan markuu soo bilaabmay waxa loo bandhigay dadka cilmiga leh aqoonta leh garashada leh wax baara ayaa loo bandhigay waxay ku sameeyeen markastaba isbedel waxay ka jaraan waxay ku beerinayeen yacni wax aan leeyahay maahan waa hindisaha waa suuragal inaan hindisaha la isiiyo waxa meesha ku jiriba gabigiisu wuxuu noqday wax niman culimo ah oo xidigaha wax ka yaqaana taariikhda wax ka yaqaana oo qolo lahayn oo wadan gaar lahayn oo Soomaalida Kenya ay kamid tahay kuwa koonfurta ee Muqdisho jooga kuwa waqooyiga jooga Soomaaliya kuwa Djibouti jooga kuwa Itoobiya jooga intaba ninba aragtidiisii uu ku biirinayo ninba intiisii uu ku biirinayo la jafaayay kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Axmed Cali oo qoray buugga kaltirsiga Soomaalida oo uu waramayay wariyaha BBC-da ee Muqdisho Maxamuud Cabdicasiis walaalka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC saacada Afrikada barina waxay tilmaamaysaa 7 aroornimo iyo qadar 22 daqiiqo BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa hagaag ciyaarihii ay inoo soo socda balse markan Yemen oo ah dalka ugu saboolsan dunida Carabta ayaa waxay qarka u saaran tahay burbur kadib ku dhawaad 10 sano oo ay wajahaysay dagaal sokeeye dagaalka ayaa bilowday sanadkii 2014 markii xoogaga Xuutiyiinta oo taageero ka helay Iiraan ay qabsadeen caasimadda Sanca isbahaysi uu Sacuudiga hogaaminayay oo ay taageeraan UK iyo Mareykanka ayaa dagaalka soo fargeliyay sanad kadib iyagoo isku dayaya inay dib u soo celiyaan dawladnimada Yemen rabshadaha ayaa yaraaday tan iyo markii uu dhaqan galay xabad joojintii ku meel gaarka ahayd ee sanadkii hore u dhaxaysay Sacuudiga iyo Xuutiyiinta balse ma jirto wax muujinaya heshiis nabadeed oo dhameystiran wariyaha BBC-da Ola Guerin ayaa warbixintan ka diyaarisay waa kan Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin oo soo jeedinaya ilbiriqsi kasta ayaa lagu xisaabtamayaa dagaalkuna waxa uu baray in ay degdegaan waxaana uu kor u qaaday xirfadahooda cisbitaalka Al-Thawra dhaqaatiirtu waxa ay ballaariyeen qaybta jajabka markan waa ciidamada dawladda waxaana qabsaday duqayn diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Xuutiyiinta hal askari oo lagu magacaabo Cumar waa la badbaadin waayey mid kalena waxaa loola cararay si loogu dabiibo meelo kale halkan qof kasta waxa uu noqon karaa bartilmaameed ma aha oo kaliya ragga ku libisan darayska ciidamada meel u dhow waxaanu kula kulannay Xanaadi talaabo kasta oo xanuun badan waxay xusuusinaysaa dagaalkii aabaheed waxa uu la halgamayaa sidii uu bixin lahaa qarashka daweynta dhabarka ayaa waxaa ka toogtay kuwa wax shiisha sida ay noo sheegtay taasi waxay ahayd sanadkii 2016 welina xabaddu waxay ku dhex jirtaa gudaha jirkeeda Xanaadi aad miyaad uga walwalsan tahay mustaqbalka halkan نعم أنا خايف عليها نعم ها ayuu yiri waan ka warwarsanahay iyada waayo waa gabar waxaan jeclaan lahaa inay aniga igu dhacdo oo aanay iyada ku dhicin waxaan jeclaan lahaa in kan wax shiishay uu aniga i toogto uusan iyada toogan kani waa cisbitaalkii ugu weynaa magaalada muddo sanado ah oo uu dagaal ka socday maalmahan ticis iyo Yemen guud ahaan kama dhicin wax dagaal ah laakiin sidoo kale nabad ma aha dhawaaqa rasaastu waa uu ka aamusan yahay laakiin cisbitaalka weli dad badan ayaa soo gaaraya bukaanada ku dhaawacmay iskorimaadka sida Maxamed oo 7 jir ah oo u oynaya hooyadiisa faashada ayaa u baahan in laga bedelo waana ku adag tahay aabihii Calwaan inuu eego xaaladda uu ku sugan yahay wiilkiisu Maxamed waxa uu waayay 3 farood markii uu soo qaatay walxaha qarxa
waxa uu ku ciyaarayay saqafka sare ee gurigiisa. خايف لاني انتهيت صباحا خلاص waa cabsanayaa sababtoo ah gacantiisa waa ay dhamaatay aad ayuu u baqayaa waxba ma samayn karo xitaa qalin ma qabsan karo. xarunta cisbitaalka ee bukaan socodka naafada ee mashquulka ah waxay isku dayayaan in ay u bedelaan dadka xubnahooda ku waayay dagaalka, laakiin adimadan macmalka ah waa kuwo asaasi ah oo naxdin leh. xitaa dhaqaatiirta waa wax aad u adag inaad aragto caruur sidan oo kale ay xaaladoodu tahay. watan Dr. Tuhani Maxamed oo ka hadlaysa. يعني محزن جدا aad bay u xun tahay una murugo badan tahay qalbiyadeena way damqanayaan markaan aragna caruur yar yar oo wali rajo ka qaba inay noolaadaan si ay ugu raaxaystaan nolosha balse u baahan in xibnahooda la gooyo. iridka ku xiga waa qayb jimicsiga joogtada ah ee jirka fisiotherabiya oo lagu talagalay Shayma Al Ahmed oo jidkan ku socotay sanado badan. miina ayaa lugteeda ka goysay dishayna saaxiibkeed. Shayma waxa ka go'an in ay noqoto qareen waa 12 jir waa codka jiilka Yemen. يتألمون مثل أنهم فقدوا ساقهم. halkan way ku dhibaataysan yihiin waxay waayeen gacmaha iyo lugaha dibadda ma aadaan oo ma ciyaari karaan sida caruurta kale ee dunida si raaxa leh laakiin waxaan ku ciyaarnaa cabsi kaliya waxaan istaagnaa albaabada guryaha markaan maqalno madaafiicna ama rasaas waxaan dib ugu cararnaa gudaha. Shayma maxaad jeclaan lahayd inaad beesha caalamka iyo caalamka u sheegto waxa ka dhacaya halkan Yemen? maxaad u arki weysaan caruurta Tays waa maxay sababta dhammaan dacaayadahaasi u dhacayaan miyaynan bini aadan ahayn. قال لي معنا الصور كبار guud ahaan magaalada oo dhan asjarafeed ayaa waxa loo sameeyay Umar oo ah askari lagu dilay duqeynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Xuutiyiinta. waa hal qof oo kale oo dhintay dagaalka muddada dheer socdayna in yar uunba aaminsan oo ay la tahay inay jirto fursad nabadeed. oo mahadsan yahay Saalimiin oo inala socodsiinayo warbixintii wariyaha BBC-da Ola Guerin. weli halkaad nagala socotaanna waa BBC. barnaamijka tabinta tooska axadan waxaynu ku soo gudbinaynaa ciyaarta xiisaha leh u dhaxaysa kooxaha Chelsea iyo Liverpool. labada kooxood waxa ay ka mid yihiin kooxaha waaweyn ee dalka Ingiriiska ee loo yaqaano 6da sare. hase yeeshee xilliyaareedkii hore waxa ay ku dhammaysteen boosas aanan ahayn 4ta sare. sanadkan waxaa la eegi doonaa xaaladaha labadan kooxood ee ay ku bilowdaan horyaalka Ingiriiska ee Premier League. ciyaarta ayaa ka dhici doonta garoonka London ee Stamford Bridge ee kooxda Chelsea. nagu soo biir tabinta tooska oo bilaaban doonta 6da maqribnimo xilliga bariga Afrika. tabinta tooska BBC. wararka kale ee ciyaarahana haddii aan eegno Bayern Munich iyo Tottenham ayaa gaaray heshiis horudhac ah oo lagu iibinayo kabtanka Tottenham Harry Kane kaasoo loo soo bandhigay in ka badan 100 milyan oo euro. Kane oo 30 sano jir ah ayaa muddo sanad ah ugu harsan inuu dhamaado heshiiskii uu la galay Tottenham. Spurs-na waxay haatan ku qasban tahay inay go'aan ka gaarto in Kane uu ka tagayo kooxda ama uu joogayo. ciyaaryahankan afka hore ugu dheela Ingiriiska iyo Tottenham ayaa Tottenham u dhaliyay 280 gool 435 goor oo uu ka soo muuqday shaxda kooxda. si dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddii subaxnimo aniga waa Kawthar Maxamed Cabdullaahi oo idin leh 5 galabnimo intaan dib hawada ugu kulmi doono inta ka horeysa sidaas iyo nabadgelyo.